magaaladan gaalkacyo waxay caan ku ahayd xagga tacliinta odayaashii hore oo annaga aabayaasha ahaa iyo awowayaasha ahaa dad tacliinta aad iyo aad u jecel ayay ahaayeen waxay isku dayeen inay gaalkacyo ka hirgeliyaan iskuul sidii hore loo sheegay waxay odayaashii u direen gobolka shanaad dad bay u direen macallimiin bay ka keeneen iskuul bay halkan ka fureen iskuulka markii dambe waxaa la wareegay wasaaradda magaranaysa tacliinta oo masaarida anigu dadkii halka iskuulka ka galay baan ahaa waagii oo wax ka bartay marka dadkan magaaladani waxay caan ku ahayd tacliinta dad tacliinta aad u jecel waa ahaayeen hadda waxaa loo baahan yahay in hadda meeshii laga sii qaado dadka hadda gacanta ku haya iskuulkan horumarintiisa iyo ballaarintiisa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin in lala garab galo oo la caawinana wax loo baahan yahay weeye sidii hore loo dhawaajiyay tacliintu barashadeeda kaliya hadda waqtigan la joogo mataqaanaa wax tar maaha waxaa loo baahan yahay tayadeeda in kor loo qaado iskuulkan insha Allah waxaa la rajaynaynaa inay ka soo baxaan arday tayo leh oo hadhow la jaan qaada tacliimaha sare oo jaamacadaha mataqaanaa adduunka ku yaala wax ka barta waxaan rajaynayaa dad badan oo hadda mataqaanaa intii muddo ah ku hamiyay inay caruurtooda ka soo celiyaan dibadda oo ku soo celiyaan waddanka ku soo celiyaan oo mataqaanaa raadinayay iskuul tayo leh inay helaan hadda waxa loo baahan yahay maaha oo kaliya waxbarasho waxay la tahay waxa loo baahan yahay waxa way tayo sidii hore loo sheegay tacliin tayo leh in gaalkacyo laga helo loo baahan yahay tacliin ma garanaysaa la tartanta meelaha kale oo adduunka in laga tayorgaliyo ayaan ma garanaysaa rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaa loo baahan yahay inaynu mataqaanaa waan isku boorino sidii aan uga qayb qaadan lahayn tayagelinta iyo taabagelinta iyo mataqaanaa xaqiiqinta iskuulka waxaa loo baahan yahay mataqaanaa wixii naka ina kaga aadan inaan ka qayb qaadano haddii Ilaahay yiraahdo